Salaamullaahi calaykum meel kastood adduunka dacaladiisa ka joogtaan akhyaarta sharafta iyo karaamada u saaxiibka waa caawa iyo ciyaarihii kooxda Liverpool ayaa waxay guul ka gaadhay kooxda Burnley iyadoo soo koobtay farqiga u dhaxeeya iyaga iyo Manchester City kaasoo ay ku soo koobeen 9 dhibcood oo kaliya. Sidoo kale kooxda Newcastle United ayaa waxay ka badisay kooxda Aston Villa. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa waxa ku sii socda guuldarooyinkii istaba joogay waxaana ka badisay kooxda Wolves iyadoo gurigooda ku garaacay ugana badiyay 2-0. sidoo kale kooxaha Leicester City iyo West Ham ayaa iyaguna waxay ku dhameysteen barbaro 2-2 ah iyagoo kala qaybsaday dhibcaha. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa hadaba waxay guul ka soo gaadhay kooxda Burnley iyadoo marti ugu ahaydeen waxayna soo yareeyeen farqiga dhibcaha ee iyaga iyo Manchester City u dhaxeeya ee horyaalka Premier League. Liverpool ayaa hadaba waxay goolka u dhaliyay laacibkooda Fabinho kaasoo Liverpool u go'aamiyay 3 dhibcood ay ku gaadheen guushan iyadoo uu u dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta. Fabinho Liverpool ayaa waxay ahaayeen 3 dhibcood oo muhiim ah maadaama ay soo yareeyeen farqiga iyaga iyo Manchester City kaasoo markii hore ahaa 12 dhibcood hadeerna ay ku soo koobeen 9 dhibcood oo kaliya waxayna Liverpool gacanta ku sii haysataa ciyaar u baaqatay kaasoo haday badiyaan ay u soo dhawaan doonaan kooxda Man City waana hal mar oo kaliya la qabto hada Man City. Odayba waxa laga sheegay intuu soo wiilkiisii baa la dilay markaas maalintii dambe intuu xidhay baa lagu wareeyay xagee galaysaa maanta wiilkaygii baan u soo aaraya. Casarkii ninkii laga sugayay inuu wiilkiisa u soo aaro casarkii gaadhigii ugu horeeyay dib ula soo raacay ula soo noqday markaas lagu wareeyay hebel maxaa ku soo celiyay markaas naftaada dhan waxay ku sugan tahay hal mar oo laga il horeeyo. Kooxda Man City waa hal mar oo kaliya oo la qabto gool darro la kulanto ka bacdina Liverpool ay soo kacdo sidaasna dhibcaha ay isla soo sibaan marka kooxda Liverpool waxay haysataa chance weyn oo ay kula tartamaan nimanka Man City nimankaasoo la qaban la yahay. Hadaba waa halkii odaygii waa hal mar oo naftaada dhan waxay ku sugan tahay waa hal mar oo laga il horeeyo marka Liverpool waxay leeyihiin waa hal mar oo Man City loo qabto hadii loo qabto anana aan soo badino ciyaarta noo harsan nimanka dhinaca ayaanu kula qabsan doonaa koobkan waana kula dagaalami doonaa ilaa iyo dhamaadka. Kubadduna waa hal mar waa madow iyo cadaan waa hal mar oo lagu qabto hadii hal mar lagu qabtana 2 jeer isku xigta ama baraje lagu galiyo ama ay gool darro ku soo gaadho wixii kula tartamayay waa ku soo gaadhayaan ama way ku dhaafayaan waxayna ogeyn kooxda Chelsea oo seasonka bilowgii hore oo dhan ciyaarta horyaalka Premier League hogaanka u haysay mar ayay waxay ka dageen karkaarka iyo miiska kala sareynta horyaalka Premier League hadeer waxay ka sii laalaadaa kaalinta saddexaad marka horyaalku waa iska noocaas oo kale horyaalka Premier League-na laguma xisaabtami karo inkastoo ay kooxda Man City bariyahan ka dhigtay bahalkii waxa iyagu iska leeyihiin oo ayagu aad ugu tartamaan hadeer ku soo noqnoqdaan marka laakiin waa kubaddu waa madow iyo cadaan wax walba way ka dhici karayaan marka kooxda Liverpool waxay haysataa chance ay tartankan kula geli karayaan ama kula dagaalami karayaan horyaalka Premier League ilaa iyo dhamaadka ciyaaraha iyagoo aan lagu xisaabtami karayn ilaa ay maxaa la dhahaa horyaalka kooxun loo gacan geliyo ama wax kale ay isbedelaan marka kooxda Liverpool waxay haysataa ciyaartooy ay kula tartami karayaan in ognahay inay suuqi January ay soo iibsadeen Luis Diaz marka maxaa la dhahaa nimankaas waa ay kula dagaalami karayaan horyaalka Premier League kooxda Man City marka ciyaartooy isku filan oo isfahansanna way haystaan oo Mohamed Salah Mane iyo maxaa la dhahaa ninka la dhaho Diogo Jota sidoo kale Luis Diaz oo hadeer ay ku soo darsadeen safka hore ee kooxdooda. Hadaba kooxda Liverpool 5 ciyaarood ee ugu dambeysay ee kooxaha kaalmaha hoose ku jiraan way soo karbaasheen kooxaha yar ma naxariistaan nimanka Liverpool marka 5 ciyaarood waxay ka soo guuleysteen kooxaha yar yar ee kaalmaha ugu hooseeya ku jira marka kooxda Liverpool waa manaxayaal aan u naxin kooxaha yar yar ee kaalmaha hoose ku jira waana xaqaan. Ciyaartan ayaa hadaba ku bilaamatay taxadar ay muujinayaan kooxda Burnley kaasoo rabay inay ugu yaraan hal dhibic ama ay soo helaan 3 dhibcood maadaama ay wax weyn u taraso kale kooxda martida ahayd ee Liverpool ayaa ciyaartan maamulasay waxaana fursado badan ka khasaariyay Mohamed Salah oo kubad loo fishay inay gool tahay
ka khasaariyey kooxdiisa, sidoo kale Mane, Fabinho dhammaantood Liverpool. ciyaartaasna ugu dambeyn waxay kusoo dhammaatay oo guusha kusoo raacday kooxda kubadda cagta ee Liverpool kadib markuu Fabinho uu gool u dhaliyey kooxdiisa Liverpool. kubad uu markii hore ee goolkiibaha ee Burnley iska soo badbaadiyey kabacdina uu ku celiyey mar labaad ayaa waxay noqotay kubaddaasi gool. kubaddaa ka soo shaqeeyey korna uu soo tuuray Arnold. ninkaas waa qaybiyaha Liverpool. kubadahan inta badan saga ayaa ka caawiya kooxda Liverpool, waana caawiye aad u weyn. Arnold kama marmaan Liverpool. ugu dambeyntiina haddaba kooxda Liverpool ayaa waxay yeelatay 54 dhibcood, waxayna 9 dhibcood oo ka dambeeyaan kooxda Man City, iyadoo ay leedahay Man City 63 dhibcood. haddaba faniska Liverpool meel kastaba adduunka ka joogaan waxaanu leenahay saaxiibayaal hambalyo. haddaba saaxiibayaal, subscribe-ka iyo like-ta iyo commentiga haga ilaawina. haddaa hore ila joogteenna waad mahadsantahay, haddii kalena soo dhawaado aad cusubtihiin.